السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن أو وناكسن داودي على ذي الأهان تيمبا كنا سولو هذا برنامج كي هذا الحين تضباط أو تضباط واللي بعد كذا وتان هون كيبل تي في داودي على تضباط كان برنامج كوحة وإنك إيمان دونا عاصمة الصومالية مقدشو. madaxweynaha dalka Turkiga mudane Rajab Tayyip Erdogan oo toddobaadkan caasimada Soomaaliya booqasho ku yimid sidoo kale hadalhaynta dalka Soomaaliya gaar ahaan caasimada Soomaaliya ee Muqdisho toddobaadkan waxa ugu weynaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa waxa uu magacaabay xukuumad cusub oo ka kooban 20 wasiir kuwaas oo daawadayaal ay xusid mudan tahay in dhammaantoodba ay yihiin وجيال عصب sidoo kale daawadayaal waxaan xukuumadan ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake gabi ahaanba aan qayb ka ahayn xildhibaanada golaha shacabka ee dawladda federaaliga ee Soomaaliya kuwaas oo xukuumadii hore inta badan qayb ka ahaan jiray madaxweynaha dalka Turkiga mudane Rajab Tayyip Erdogan ayaa caasimada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho toddobaadkan waxa uu ku yimid safar taariikhi ah safarkiisii labaad ee magaalada Muqdisho uu ku yimaado isagoona madaxweyne Erdogan magaalada Muqdisho ujeedooyinka uu yimid ay qayb ka ahayd in uu xariga ka jaro mashruucyo fara badan oo dalka Turkiga uu ka fuliyay magaalada Muqdisho aeroboorka magaalada Muqdisho markii uu ka soo degay madaxweyne Erdogan waxa ku soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada waxaana madaxweynaha dalka Turkiga qaar ka mid ah ciidamada dawladda Soomaaliya ay u garaaceen astaanta labada wadan ee dalka Turkiga iyo waliba Soomaaliya madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan madaxweynaha dalka Turkiga oo ay wehelinayeen qaar ka mid ah golihiisa wasiirada ayaa waxa uu xariga ka jaray terminalka cusub aeroportka magaalada Muqdisho ee Aadan Cadde International Airport oo si casri ah u dhiseen dalka Turkiga iyadoona labada madaxweyne iyo waliba labadooda marwo ay si wada jir ah xariga uga jareen terminalka cusub aeroportka Aadan Cadde magaalada Muqdisho waxaa loo soo galbiyay madaxweynaha dalka Turkiga dhanka gudaha magaalada Muqdisho waxaana la mariyay wadooyinka dalka Turkiga ee ka dhiseen caasimada Soomaaliya ee Muqdisho isagoona gaaray isbitaal Digfeer halkaas oo ay dalka Turkiga si casri ah oo isbitaalka u dhisay isla markaana labada madaxweyne si wada jir ah sidoo kale ay xariga uga jareen isbitaalka Digfeer labada madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan iyo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya ayaa madaxtooyada Villa Soomaaliya saxaafada kula hadleen shir jaraa'id oo si wada jir ah u qabteen iyadoona madaxweynaha dalka Turkiga mudane Rajab Tayyip Erdogan oo halkaas ka ballan qaaday mashaariic kala duwan oo dalka Soomaaliya ay ka fulinayaan shacabka Soomaaliyeed maanta waxa farxad weyn iyo maxaan ku inay soo dhaweeyaan oo ay ku soo dhaweeyaan dalkiisii qoraalkay madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan madaxweynaha jamhuuriyadda Turkiga maanta waa maalin aad bugün çok iyi bir gün bugün çok mutlu bir gün bizim için Somali için bugün bizim kardeşimiz Sayın Recep Tayyip Erdogan burada ağırlamak bizim için çok önemli ve Somali halka da bugün gerçekten çok mutlu. Booqashada maanta marka loo fiiriyo dhinaca waqtiga booqasho gaaban ay ahayd oo hal maalin ah laakiin dhinaca macnaha ay leedahay marka loo fiiriyo waa booqasho raadkeedu uu jiri doona sanooyin badan oo mustaqbalka soo socda
ziyaret kısa yani birkaç saat ama gerçekten Somali için büyük bir önemli, büyük bir gerçekten anlamlı bir ziyaret. Onun için Somali halka bunu gerçekten müteşekkir. marar badan ayaan u mahad celinay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ahay madaxweynaha yahay dowladda Turkiga iyo shacabka Turkiga laakiin haddana ka caajisimayno inaan mar kale aan intaba madaxweyne Erdogan dowladda Turkiga iyo shacabka Turkiga baan daano waa mahadsantihiin. Sayın kardeşimiz Recep Tayyip Erdogan çok teşekkür ettik başbakandayken. Şimdi de gerçekten bizim için bu teşekkürün tekrarlamak ve bizim için çok önemli ve tekrarlama gerekiyor. Tekrar da teşekkür etmek istiyoruz. xiriirka ka dhexeeya Turkiga iyo Soomaaliya waa xiriir soo jireen qarniyaal badan soo jiray laakiin waayahan dambe ayada oo Soomaaliya xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya wuxuu noqday bilow cusub ma aha labada dalkiya laakiin bilow cusub ee Soomaaliya iyo caalamka inteeda kale oo Turkiga Sen mikrofonu niye koymadın ki oraya? Soomaaliya olsun 3,5 yıl önce verdiğimiz sözlerin tutulmaya başlandığını ve bunların ortaya çıktığını görmek bizleri ayrıca memnun etmiştir. Waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan halkaa ka sheego waxaan aad ugu farxaya in ballantii aan qaadnay 3 sano ka hor in maaragtaa halkaan maaragtaa maanta aan ka gudubnay oo wixii shaqo ah intaan qabtay haddana maaragtaa maanta aan soo furnay aad ayaan uga mahadcelinayaa arrintaas. Önceki ziyaretimizden bu yana mevcut gelişmeler bizleri geleceğe yönelik umutlandırıyor. Waxa aan maanta qabanay waxay na tusaysaa in mustaqbalkan wax badan la qaban karayo. Bugün bakan arkadaşlarım milletvekillerinden oluşan, medya mensuplarından oluşan bir heyetle bizler Somali'yi ziyaret ettik. Maanta waxaa soo booqday aniga iyo raggii lamidka ahaa oo maaragtaa wasiirada iyo xildhibaanada ah waxaan maanta si rasmi ah usoo booqanay dalka Soomaaliya. Kardeşim Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile çok verimli ikili bir görüşme yaptık. Walaalkaygii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaan maaragtaa qaadanay kulan aad u qiimo badan oo u faa'iido badan ayaan yeelanay. Bu görüşmede ikili ilişkilerimiz, işbirliği alanlarımız, Somali'yi daha ileriye taşıyacak projeler hakkında neler yapabiliriz bunları görüştük. Waxaan iska aragnay waxa Soomaaliya mustaqbalka loo yeeli loo samayn karo iyo waxa ay tahay inaan iska kaashano ayaan aad uga wada hadalnay. Ziyaretimiz vesilesiyle az önce hep birlikte şehadet ettik. 3 anlaşma imzalandı. Booqashadayda halkaan sida aan wax yar ka hor aad markhaati ka noqotee waxaa kala saxeexanay 3 heshiis. Gençlik ve spor alanında işbirliği anlaşması, Waxaa kala saxeexanay arrimaha isboortiga in la iska kaashado. deniz ulaştırması anlaşması, Arrimaha maaragta gaadiidka badda in la iska kaashado. savunma sanayi işbirliği anlaşması. Iyo in maaragta difaaca warshadaha in la iska kaashado. Bu anlaşmalarla birlikte yeni bir safhaya geçeceğimizi işaret edildi. Waxaan aaminsanahay in maaragta heshiisyadaas daraadooda in wax badan aan wada qabsan karin. Tabii bugün gerçekten en önemli bana göre 2 açılışı yaptık ki bunlardan bir tanesi sözünü verip bugün de açılışını gerçekleştirdiğimiz 200 yataklı buradaki hastanedir. Waxaan maanta kaloo soo furnay 2 projectyo aad u muhiim ah oo midkood uu yahay midkii aan balan qaadnay 2019 oo ahaa isbitaalka. Son teknoloji ürünleriyle teçhiz edilen bir hastane şu anda burada açılmış bulunuyor. Waxaan maanta soo furnay isbitaal la dhigay qalabkii ugu dambeeyey ayaa maanta soo furnay. Huzurlarınızda gerek Sağlık Bakanlarımıza Halep Selek ve TİKA'yla TOKİ'ye özellikle teşekkür ediyorum. Yüklenici firmalara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda caafimaadka iyo shirkadihii ka geystay maaragtaa dhismahaas gacan ka geystay oo ay ka mid yihiin Tooki iyo Tika iyo wixii lamid ah. isdhexgalka dalka Turkiga iyo Soomaaliya
iyo weliba mashaariic ay ka fuliyeen waa mid aad u ballaaran waxaadna caasimadda Muqdisho ku arkaysaa iskuulada dalka Turkiga ay ka fuliyeen qaarkood gaar ahaan dugsiga hore farsamada gacanta ee Polytechnico arday iskugu jirta Turki iyo Soomaali kuwaas oo si wadajir ah u qaadaya calamada labada wadan waa wadamada Turkiga iyo weliba Soomaaliya sidoo kale maamulka gobolka Banaadir ayaa kadib safarka madaxweyne Erdogan waxa ay casho saraf ugu sameeyeen degmada Cabdilcasiis ee gobolka Banaadir shaqaalaha Turkiga ee ka howlgala caasimadda Soomaaliya Muqdisho kuwii hore Muqdisho ugu sugnaa iyo weliba kuwa cusub munaasabadaas oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyadoona intii munaasabadan casho sharafta ay socotay lagu soo bandhigay heeso ka turjumaya xiriirka labada dal ee aadka u wanaagsan iminka qaar ka mid ah dadka Muqdisho ayaan waxaan wax ka weydiinay bal ra'yigooda ku aadan aragtida ay ka qabaan xiriirka labada dal iyo weliba mashaariicda kala duwan ee caasimadda Soomaaliya Muqdisho dalka Turkiga uu ka fuliyo sida shacabka Soomaaliyeed ay uga faa'iideysan karaan ugu horreyn magacaaga adoo ku bilaabay bal waxaad ka warbixisaa imaanshaha madaxweynaha Turkiga Erdogan ee Soomaaliya muxuu ka bedeli karaa dareenka shacabka Soomaaliyeed ayay kula tahay waa maasantahay magacaygu waa Ciidid Nuur Mire haddii aan fikirkay ka dhiibto imaanshiisa wax weyn ayay ka bedeli kartaa sababtoo ah waa madaxweyne xilli xaaladda Soomaaliya aad u adkeed soo booqday oo adduunyada tusiyay in waddanka Soomaaliya la imaan karo oo sameel macnaha dhibaato ka jirta aysan ahayn
haddana mashaariic badan waddanku soo kordhiyey haddana mashaariic ayuu xarigga jiraa waanu ku faraxsan haddana shacabka Soomaaliyeed waa tahay Soomaaliya sidee uga faa'iideysan kartaa ama shacabka Soomaaliyeed sidee uga faa'iideysan karaan ayay kula tahay mashaariicda kala duwan ee Turkiga Soomaaliya ka fuliyay iyo waliba kuwa uu doonayay iminka inuu ka fuliyo wallahi siyaabo badan ayaa uga faa'iideysan karnaa eelbarko kaleeto waxa waaye waa bilicda waddanka ay wax badan ka bedelay dadkii shalay dadka muwaadiniinta oo citizeniska dad kale toofo oo ajnabiga isku hal meel ka soo galaan hadda way kala soocan yihiin marka wax weyn ayay ka bedelaysaa ugu horreyn magacaaga adoo ku bilaabaya sideed u aragtaa imaanshihii Erdogan madaxweynaha dalka Turkiga Soomaaliya uu yimid dareenka shacabka Soomaaliyeedna imaanshihiisa Erdogan ee mar kale Soomaaliya maxay ka bedeshay aniga magacayga ku bilaabayo arwaax muxuu maxaa la dhahay imaanshihii oo imaanaya madaxweynaha dalka Turkiska runtii si weyn inoo farxad gelisay aadaan u soo dhaweynaynaa maadaama aan shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho waa tahay imaanshaha Erdogan ka sokow sidee ayay shacabka Soomaaliyeed uga faa'iideysan karaan ayay kula tahay mashaariicda dalka Turkiga uu ka fuliyo Soomaaliya gaar ahaan caasimadda Muqdisho amaba kuwa uu ka fulin doono madaxweynuhu ballan qaaday runtii aadaan soo dhaweynaynaa dareenkiisa oo muujiyay oo ku tilmaamay inuu meesha mashaariic aad u waaweyn oo ku fulinayo taasoo tilmaamay inuu wax ka bedeli doono caasimadda Muqdisho bilicdeeda waana soo dhaweynaynaa maxalla mashaariicdaasna waa loo baahan yahay in aad looga faa'iideysto sababtoo ah waddanka business badan ka jiro madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan caasimadda Muqdisho ayuu mar kale dib ugu soo laabtay bal dareenkaaga iyo aragtidaada booqashadii madaxweynaha Turkiga ee Soomaaliya ka waran bismillaahir rahmaanir rahiim markuu ugu horeyso magacayga Faadimo Xaaji Nuur ayaa la dhahaa waxaan joogaa magaalada Muqdisho gabdhaha Soomaaliyeed oo magaalada Muqdisho oo joogaan kamid ahay madaxweynaha Erdogan oo Turkiga wax badan ayuu soo kordhiyaan leh aniga fikradeyda waayo taas waxa ka mid tahay iskuulo badan oo sameeyay arday fara badan oo Turkiga loogu qaaday isbitaalo badan oo loo sameeyay masaajidada muslimiinta magaalada Muqdisho ku yaalo oo burburkii dagaaladii lagu burburiyay ya dibadhus lagu sameeyay laamiyadana loo qurxiyay elbooraadka adduunka elbooraadkeena loo akeysiyay la dhisay marka horumarka oo Turkiga noo sameeyay ka mid tahay aadan ugu faraxsanahay imaashada oo madaxweynaha Turkiga noo imaaday Erdogan waxa weeye madaxweyne jira madaxweyne gartay dhibaatada Soomaaliya ka jirta waa nin aad iyo aad u qiimo badan gartay baahida iyo dhibaatada Soomaalida haysata wax fiican baan u arkaa waxaan jeclaan lahaa inuu sii wado taageerista buuxda uu siinayo dawladda iyo shacbiga ummadda Soomaaliyeed dhanka kale daawadayaal sidaan barnaamijka hore in kugu sheegnay ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake waxa uu magacaabay xukuumaddiisa cusub oo ka kooban 20 wasiir kuwaas oo dhammaan wajiye cusuba Maxamed Cumar Carte ra'iisul wasaare ku xigeen ahna wasiirka shaqada dhalinyarada iyo isboortiga Ahmed Xasan Gaboobe wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka Maxamed Aadan Ibrahim Farageti wasaaradda maaliyadda Abdulqaadir Sheekh Cali Diini wasaaradda gaashaandhigga Cabdisalaan Hadliye Cumar wasaaradda arrimaha dibadda Khadra Bashiir Cali wasaaradda waxbarashada Fahad Yaasiin Xaaji Daahir wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Cabdiraxmaan Yuusuf Cali Caynte wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga Nuur Faarax Xirsi wasaaradda dastuurka Guuleed Xuseen Qaasim wasaaradda warfaafinta iyo isgaarsiinta علي أحمد جامع جانجلي وزارة قاديدك يدولست هودا سعيد حسين عيد وزارة حنانة حولها ديرتا يداقة علي حسن عثمان وزارة بيرها حسن أحمد مودي وزارة قناعسية يورشدها صالح شيخ عثمان موسى وزارة هولها جود يدبوردسكا سهرة محمد علي سمتر وزارة هوينكا يهرمرين حقوق آدنها محمد مختار إبراهيم وزارة كلوميسية إيا خيرات كبدا عبد الرزاق عمر محمد وزارة بترول كبيها إيا خيرات كدبيعية حاوة حسن محمد وزارة عافيماتك آدي أدبا وما سنتين haddaba waa maxay aragtida shacabka Soomaaliyeed ay ka qabaan golahan cusub ee wasiirada si aan arintaas wax uga ogaano ayaan dadka ku nool magaalada Muqdisho qaar kamida oo iskugu jira bulshada qaybaheeda kala duwan mikrofoonka la dhex qaadnay aragtiyadoodiina waxa kamid ahaa
ra-iisul wasaaraha 20 xubnood oo wasiiradiisa ayuu magacaabay xalay oo wajiir cusub dhammaantooda ka waran ra'yigaaga wasiiradaas wallaahi horta aniga farxadeyda lama koobi karo golaha wasiirada waa ku faraxsanahay khaasatan waxaa aad ugu faraxsanahay golaha wasiirada waa new face isbedelka wadankeena ayay ka mid tahay waxaa waliba golaha wasiirada iyo prime ministerka iyo madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka ugu hambalyeynaya saddexda gabdhood golaha wasiirada noogu jiraan aad ugu mahadsan yihiin aadan ugu hambalyeynaya maadaama wajiir cusub ay yihiin misalada Soomaaliya 2016 waxay gaarsiin karaan higsiga doorashada 2016 of course waa gaarsiin karaan waxayna ka keeni karaan waxa isbedel new face oo loo soo doortay ayay ka mid tahay waa dad aqoon-yahano ah waa dad dhalinyaro ah waa dad oo maxaa ku raadaya khibrado kala duwan ay qabaan markaana 2016 insha Allah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya xal wuxuu magacaabay xukuumad ka kooban 20 wasiir dhammaantoodna wajiir cusub ah sidee kula tahay xukuumaddaas cusub aragtidaadaas waa maxay xukuumaddaas والله شيء عجيب ويه لبعضنا إنه عصب ويه وضد عصب كرايتيريا هالو دورتي أنا ما قرنا هايو شروطها أي بوحيين إلا هذا أنا ما قرنا لكن هدي إلهي شقوين كاسية وإنتاس وإلهي إنه أفضيان إلهي ورجين هيا وبرنامج في عن حدي أنا قبس جيرين بخلافنا وسنيمانين استراتيجية وين بعيارين مدعين هاي رزارو وأنا كم هتسيهين الليست مقالوا كده جنت هذا بوقي واحد زي استمتون مجرا. أن حبناها ما داب وجع عصب أيهين سياستنا أنتوا بدن أي قوة عصبيين مثل هذا هاي سومالي هيسي لابد يكون يلحق تمنك دور شحر أي سومالي جارسين كران. فكر كي جاركا هدان كبيو أنا مو ملينا it will take long period of time دولدان إلى بعض السنة ما كان مو ملينا هيك إنه جارح يعني ما قبوا لكن وفكر كي جاركا لأنك برلمانك وحل لبانكم مجرو حكومة دان عصب وزيرنا إن حل لبانه مال مريان أيام لو فديا مكلتها إن برلمانك عنتمي كرتو أما مال مرين كران وزيرنا عصب والله أرنكاسيتو waxay u taala baarlamaanka u taala walaal baarlamaanka u taala hadii iyagu iska dhaxwaayaan hadii ogolaan hayaan hadii diidayaan baarlamaanka u taala laakiin waxa fiican wadankan buuqi oo qalaas siyaasadeed inuu san galin baa wadanka u fiican marka waa saas ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo 20 kan wasaaradood ee la magacaabay laba wasaaradood oo muhiim ah ayaa ka maqan gaar ahaan wasaaradda garsoorka iyo wasaaradda amniga qaranka qaybna waxay ka ahaayeen labadaas wasaaradood wasaaradihii xukuumaddii hore ee ra-iisul wasaaruhu kala diray baarlamaanku ay diideen haddana kuma uu soo dirin ra-iisul wasaaruhu arrintaas maxay kaga dhigan tahay sidaas sababta uga tegay والله ما قرن كرر كل واستراتيجية واستراتيجية ورئيس وزراء عمر وعياره يوي مدحينها وغلط شتي marka wax alaala wixii ay siiraahdaan qaabkii quman ay siiraahdaan saana anfacaysa dawladda shacabka Soomaaliyeed inay iyagu sameeyaan weeyaga mas'uulka wadanka bal ka waran ra'yigaaga golahaas cusub ee wasiirada run ahaantii aad baan u soo dhaweynayaa wasiirada tayada leh ee xalayto lagu dhawaaqay ku dhawaaqay ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake aad baan u soo dhaweynayaa waa aqoon-yahano da'yar karti leh kana bixin karo hawsha loo igmaday laakiin isma lihi barnaamijka higsiga 2016 inay Soomaaliya gaarsiin karaan isma lihi laakiin waa un dhiig joojin oo muxuu ahaay waxbay ku simi karaan as leeyahay laakiin heerkii loogu talagalay higsiga 2016 oo one man one vote ma gaarsiin karaan horta ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid arintu xal ku dhawaaqay aad baan u soo dhaweynaynaa maadaama ay yihiin dad cusub wajiyo cusub oo hore siyaasadda ugu jirin ayagoo dadkii hore ahaayeen two group oo is haysta oo midka kale uu opposition ku yahay waxaan leeyahay arrinkaas arin cusub waaye baarlamaankuna ha soo dhaweeyaan shacabka Soomaaliyeed ha soo dhaweeyaan ayagoona ugu xulayno dad dhalinyaro ah oo aqoon leh oo xirfad leh oo dalka hogaamin kara waxna ka bedeli kara waa tahay ma kula tahay inay Soomaaliya gaarsiin karaan 2016 higsiga cusub in doorasho xor ah Soomaaliya ka dhacdo oo qof waliba codkeeda qofkay doonto igu codeynayso haddii la siiyo waqti ama time inkastoo waqtiga aad u yar yahay oo nin cusub oo taqaanid oo hawlaha uu qaadanayo muddo ku qaadanayso waa laga yaabaa higsiga cusub inay qorshe fiican ka keenaan wax xildhibaan kuma jiro liiskan cusub ee golaha wasiirada marka xildhibaanada Soomaaliya miyay ansixin karaan ayay kula tahay haddii la rabo horumar Soomaaliya in la gaaro waxa waajib ah inay ansixiyaan ra'yigan cusub iyo dadkan cusub iyo wajiyadan cusub ma aha qof weligii soo taagnaa inuu meesha taagnaado waa in waqtiga la isku baneeyaa
baarlamaanka hadduu rabo in horumar waddanka laga gaaro waxaan ka codsanayaa in ay ansixiyaan ugu dambayntii laba wasaaradood oo muhiim ah ayaan wasaaradaha la magacaabo aan ku jirin waa wasaaradda garsoorka iyo wasaaradda amniga qaranka waxayna qayb ka yihiin wasaaradihii la isku haystay oo raggii baarlamaanku ay diideen qaarkood loo magacaabay haddana laguma soo darin marka wasaaradaha sababta uu ra'iisul wasaaruhu u reebay maxay kula tahay aragtidaas ra'iisul wasaaruhu u reebay waxa waaye aragti badan oo la isku qabanayo oo la iskaga soo horjeedaa jira ra'iisul wasaaruhuna waxay ila tahay inuu ku saxsan yahay inuu dadkii hore ee mashruuca ku jiray ama dawladdu ka dhaqaaqi lahaa inay ka madax banneeyo oo dad cusub wajiyo cusub ku magacaabo daawadayaal waxaan intaasi ku soo afmeerayaa barnaamijkii hadalhaynta toddobaadka oo toddobaadkan inkaga imaanayay magaalada muqdisho barnaamijka waxaa in la socodsiinayay anigoo ah Axmed Cumar Sheekh Nuur waxaa dhanka kaamirada iga gacan siiyay saaxiibka Yaxya Maxamed dhanka farsamaduna waa Ayatullah intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waxaan inkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh